السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wacan oo wanaagsan asxaabteena meel kasto aad joogtaan ciid wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale ku soo dhawaada casharadii maalin waliba aan idin soo gudbin jirnay marka laga reebo maalinimada jimcada labadii maalin ee soo dhaafay waxaan ku kalmaqneen maalmaha u dabaaldegida munaasabada ciida waxaana maanta dib isugu soo laabanay sidoo kale waxaan jecelnahay inaan idin soo gudbino isla markaana aan sii dardargelino casharadeena muhiimka ahaa oo alaba aan idin soo gudbin jirnay si wax badan aad ugu fahantaan insha Allah annagana aan jecelnahay in jundi badan aan ku bixino sad wax u fahmi lahaydeen oo anaga hadafkeenu waa in aad idinka wax fahantaan oo asxaabteena kamid ah waayo waxa dad barato waxa loo baahay inaad ku celiso bulshada si ayagana waxaad fahantay ay u fahmaan marka hore waxaan u soo gudbinay casharo badan oo faa'iido leh oo conversationkii u badnaa sidoo kale galabta amba maanta waxaan idin wadaa casharkii ahaa tennis galabta waxaan fiirinaynaa tenniska 12 tennis ay ka kooban hore ayaan kor ugu soo xusay laakiin maanta kiis ugu horeeyay ayaan guda geli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo tenniska ugu koowaad ayaa maanta dul istaagi doonaa wuxuu yahay iyo feebabka loo isticmaalo iyo wuxuu qaadanayo iyo kuwa kale soo socda waxay yihiin waa wada arki doonaa ee ku soo dhawaada dhageysi haboon asxaabteena what is maxayba present continue tenniska koowaad is user for loo isticmaalaa present continue tenniska koowaad is user for waxaa loo isticmaalaa to express inuu qeexo an action ficil weji kaasoo is happening dhacanow hadda examples tusaalayaal they are ayagu iswiig waxay qurqurinayaan sidii milka caana macaan she is ayadu sibin waxay ka banaysaa hot shaah kulul I am aniga explaining waxaan sharaxayaa the lesson casharka what is the formation wuxuu yahay of present continuous tense kamid ah subject waa ficil sameeyaha oo lagu daray s oo lagu daray m oo lagu daray r oo lagu daray verb oo lagu daray ing oo ugu dambeyntii lagu daray object aan ku celiyo casharka what is maxayba present continuous tense ka koowaad is user for loo isticmaalaa present continuous tense ka koowaad is user for waxaa loo isticmaalaa to express inuu qeexo an action ficil weji kaasoo is happening dhacanow hadda examples tusaalayaal they are ayagu iswiigin waxay qurqurinayaan sweet milka caana macaan she is ayaga sibin waxay kabanaysaa hot shaah kulul I am aniga explaining waxaan sharaxayaa the lesson casharka what is formation wuxuu yahay formationka of present continuous tense ka koowaada subject waa ficil sameeyaha SMER ayaa lagu dari doonaa oo verbka uu qaato oo verbkii ing oo qaato tenniskani oo lagu daray object what is formation of present continuous tense subject plus is plus m plus r verb ing plus object waxaan u malaynayaa inaad fahanteen oo wax badan aad ka fahmi doontaan insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo anaga mar waliba waxaan naga go'on inaan idin soo gudbino casharada aan isdhihi karno asxaabtaada way ka faa'iideysan karaan inta badan waan idin soo gudbin doonaa hadduu Eebbe subxaanahu wa tacaala qadaro waxaa loo baahan yahay asxaabta inay waqti kooban ay siiyaan siday u fahmaan casharada markasta waxaa dul istaaga madmad idinku soo gudbiya ama madmad u dul istaaga anigoo Ismaaciil Abuukara macallimiin ayaa igala qayb qaata oo casharada ii soo diyaariya aniga halkan ayaan idin soo gudbiyaa isla markaana aniga ayaa idin sharaxa waxaan jecelnahay mar waliba in badan oo kamid ah casharadayna inaad fahantaan waayo haddii lagu sharaxo sida Britishka waxaa loo malayn karaa in badan oo kamid ah asxaabteena aysan fahmin balse loo baahan yahay in loo kala dhigo maadaama horey dad badan ay nooga soo codsadeen in si gooni ah u soo gudbino marka balanteena waa idinkoo wax fahma insha Allah casharada waan badin doonaa tennisidana xooga ayaan saari doonaa si aad u fahantaan maanta present baan soo qaadanay insha Allah waxay xigi doona waxay noqon doonaan simple present ayaan geli doonaa maadaama 12 tennis hore ugu sheegay asxaabteena dhamaanteen waxaan idinkaga tagay sida ay nabadgeliyo ciid wanaagsan